Findoob Acne vulgaris inta ugu badan waxaa la arkaa xilliga qaangaarka. Aaga oogada sare ee maqaarka wajiga, garbaha, qoorta iyo xabadka waxaa ka soo muuqda calaamado isugu jira finan, nabro madmadow, bocoolo, nabro malax leh, buulal ama meelo ay ku jiraan biyo. waxaana sabab u ah xirmid iyo caabuq ku dhasha duleelada timaha ee saliidda qanjirada maqaarku soo saaraan ay marto. Maqaarku waxa uu leeyahay qanjiro kala duwan sida qanjirada dhididka soo saara iyo kuwa saliidda jirka soo saara. Marka qanjirada saliidda soo saara ee maqaarka, saliidda ay ku soo saaraan duleelada tinta ay ka soo baxdo ee maqaarka ayaa ka xirma oogada sare ee maqaarka. Dabeetana saliiddu waxay ku aruurtaa gudaha maqaarka. markaana barar ama finan ayaa ka soo muuqda maqaarka, waxaana fududeeya arrintan isbedelada hormoonada gaar ahaan xilliga qaangaarka oo badashada hormoonada ragga ee jirka ayaa lala xiriiriyaa. Marka saliidda ay ka xiranto duleeladii ay maraysay, waxa dhacda in dhammaan oogada sare ee jirka aaga wajiga uu yeesho finan ka soo baxa, isla markaana waqtiga kasii dambeeya ay sii waaweynaadaan. Marka hore finanku ay cad yihiin, laakiin marka uu qofku bajiyo oo dhacaan ka daadiyo way madoobaadaan, waxaana sabab u ah hawada ku dhacda nabraha furan. Mararka qaar finanku waxay isu bedelaan kuwo waaweyn oo barara, isla markaana malaxi gasho aadna u xanuun badan. waxyaabaha sababa hormoonada ragga ee androgeniska oo jirka ku bata gaar ahaan xilliga qaangaarka, wax soo saarka qanjirada saliidda jirka oo aad u bata, nooc ka mid ah bakteeriyada jirkeena ku nool ee aan jirka waxba u dhibin ee lagu magacaabo normal flora, nooc ka mid ah oo lagu magacaabo Propionibacterium oo ku badata duleelada tinta ee maqaarka halkaana xirta, waana marka finanku ay isu bedelaan malax oo ay sababayso difaaca jirka ee la dagaalamaya bakteeriyada xirtay duleelka saliiddu mar lahayd. waxa kale oo keeni kara cudurrada ku dhaca hooyada sida waxa lagu magacaabo polycystic ovarian syndrome oo ah burooyinka ugxaanta ka soo baxa iyo waxyaabo la xiriira buuqa oo kordhiya soo saarista saliidda jirka ee samaysa findoobka. qaar ka mid ah creamska la marsado iyo dhaqida badan ee wajiga. noocyada findoobka: 1. mild acne waxaa lagu gartaa finan yaryar, wax nabro ama haara ahna ma lahan. 2. moderate acne waxa ay leedahay finan waaweyn oo aan dhacaan lahayn, sidaa oo kalena nabro ma laha. 3. moderately severe acne waxaa lagu arkaa nabro qolfa leh, finankuna waxa ay yeeshaan maal. 4. severe acne waxa ay leedahay qaybtan nabro aad u badan, muuqaalka wajiguna waxa uu isu bedelaa buulal, nabro, meelo kuuskuusan iyo qaybo malaxi ku jirto, waana qaybta ugu daran. dawooyinka findoobka: daweynta findoobka hadba waxay ku xiran tahay halka uu marayo xanuunku. nooca koobaad waxaa lagu xaliyaa creams oo qofku jirka marsado ama saliid sida benzoyl peroxide creams ama salicylic acid. 2. nooca labaad waxaa loo qaataa dawooyinka bakteeriyada dila sida tetracycline, doxycycline iyo creamskii oo la marsado. 3. nooca saddexaad iyo kan afraad waxaa loo qaadan karaa retinoid drugs, dawooyinkaas oo laga soo sameeyay ama laga keenay vitamin A sida adabalin iyo tasarotin. dawooyinkan oo isugu jira creams, shampoo iyo gel.